هلا السلام عليكم خيري برواقة نيرجينيا وفتحي عبسية ما أنت مانكيga waxa ka guuxaya biyahan iyo daadkan qaaday magaalada Hargeysa shalay baan fiidiyaha arkay dabadeetana anigu surprise kuma noqon waayo waan iska garanayay waan la socday arrintan horena waan uga hadlay kun jeer baan ka hadlay oo ka qayliyay waxa siyaab leh ummadda Soomaaliyeed roob markuu doo waa u ba iyo balanbal abaartu waa ba iyo balanbal roobka maanta wax walba qaaday iyo biyaha qulqulayaan cidina xiranaynin laba bilood kadib waa abaar iyo qaylo iyo hayaay waa waray ka kacay beesha caalamka ay tolaay meeday beesha caalamku yaa noo maqan Facebook saasa lagu qarqinaya baryo iyo balanbal leysii oo dhan iyo doqon oo dhan waxa lagu gartaa number 1 waa maxaa iga galay iyo maxaa ka galay xawayga ma gelin iyo hebel baan ka fiican ama heblaayan ka fiican ama reer hebel baan ka fiican adigu waa maxaa iga galay iyo cid kalaan dhaama ma aha dadka ugu sareeya iyo dadka horumarka gaadhay iyo dadka wax isku falayaan la tartamaya qofkaasi aqligiisu wuxuu siin waayay in qof waliba qof uu dhaamo mar walba marxalad kasta oo aad ku jirto si kasto ay wada tahay qof baad dhaanta ya qof kasto qurux badan qof kala ka si qurux badan qof kasto aftahana qof kala ka si aftahansan qof kasto wax haysta ama cilmi leh qof kala ka si you get the idea. There's no such a thing as number 1 best ma jirto wax ah ya marka reer Hargeysa inta ay burco u faanayaan ay mashquulka ku yihiin reer burcaan u dhaanaa for example oo kale iska badaa koonfur iyo xamar iyo hadalkeeda iyo meeyarkii yiri bisada Hargeysa joogta ama Somaliland joogta ka nasiib badan dadka ku nool Muqdisho intay sidaa reer Hargeysa mashquul ku yihiin iyagiiba hoos u eegi waayay qof waliba caagada uu biyaha ka cabo xagga toona intaanu eegina xataa uu eegin meel kale oo uu ku leexiyo ama haamaha qashinka oo meelaha qaarkood yaala meelaha qaarkood ma badna dukaamada iyo qaarkood halkuu la eegan lahaa xagga toona eegi maaye dhulku ku sideenaya ilaa iyo mas'uuliyiintii gaariga intay saa furan daaqada saa uga tuuraya ilaa oo ay magaaladiiba noqotay qashin qub I know in dad badan ifay soo gali doonaan oo ay doonaan but Hargeysa waa qashin qub I'm not going to talk about magaalo kale iyo meel kale toona Hargeysa quite literally waa qashin qub waa slum ay noqotay Hargeysa it's a beautiful city laakiin waxay noqon lahayd ba qashin qub bay noqotay planning ka khariban guriyo waxa jira waaweyn oo filooyin oo meel aad u marta aanad helaynin qof waliba meel buu iska dhistay meeshu doonto ka taagtay meeyarka maxaa lagu haystaa meeyarku awoodba ma isaga u leh wax kaga qabta arrintan bari hore la sii kala qaatay waxana la sii kala qorshaystay dad baa qiyaamihii qorshaystay qashinka inay ka ururiyaan magaalada ka qaadaan rag bay u qoodaysan tahay dagaal baaba ka dhacaya meeyarku ma isaga juu qoran kara meeyarku iska magac maybe jaga inuu qof u xariiqo u saxeexo laakiin arrimaha meeyarku ma geli karo ya intaad meeyarka ku taagantiin ordo madaxweynaha la hadla arrintan in wax laga qabtay u baahan tahay ilaahay baan ku dhaartay horena waan ku sheegay qashinku intuu idinku soo duulo oo weerar idinku soo qaado buunaha idinku wada dhigi cumaada laga cabanaya hadeerto wallahi qashinka idin baqteenaya muxuu meeyarku bisad kaga tilmaamaya dadka koonfur jooga kansar bay dadkii wada dhimanayaan qashinku cudur oo dhan buu wataa caagadahan cudur oo dhan bay wataan chemicals iyo baliya baas baa ka liigarooba qashinkan horta ma la isweydiiyay dadka qashinka qaada ee lacagta ku qaata millions of dollars ku qaata waxa la yidhi 700,000 families baa laga qaadaa qashinka guri min $5 waa $2 milyan bishii
xagee la geeyaa ilaa hadeer lama hayo meel loogu tala galay qashinka oo lagu dhamgareeyo. There's no waste management. mahmaha ingiriisi aa jirto tiraahda arrintaasi waa pirar ka qaado policy yaa deyn baa lagu nool yahay wadamadan aan joogno. marka deyntu waxay yiraahdaan waa pirar ka qaad, pirar baad ka soo qaadaysaa, Paul baad siinaysaa, Paul baad ka soo qaadaysaa, pirar baad siinaysaa. ma fahanti qashinka Hargeysa waa arrintaas oo kale. guriyihii baa laga soo ururinayaa, dooxii baa lagu dhamgareynayaa. dooxa weli ma aragteen? marka roob yar yimaado qashinkiyo saa u sabaynaya baa magaaladiisa u soo gelaya. meel alla meesha biyuhu ka bixi lahaayeen buu qashinkii isku gudbayaa. wadooyinkii si kastoo loo dhiso boholay noqonayaa. biyuhu boholay ka dhigaan wadooyinka. magaaladiiba ceel bay noqotay. nadaafadu diinta waa ka bandh. weydinka ogo ilaahay wajigiisa ma hortegi karno ilaa aynu isnadiifino. dee waa sidaasoo socotaa oo aan istaagayn. waxaan maqli jiray hugaagu waa kula baryo tagaa. nadaafadu uma baahna lacag. ilaahu maad qoobad yar deganaatid. haddaad subax kasta intaad kacdid nadiifisid, darmadaada yar laalaabatid, hareerahaaga qashinka ka uruurisid, laba shay keliya haddaad haysto midna aad maydhido uu ku laalaaban yahay, kii kalena isagoo nadiifa aad xidhan tahay, waa intaa waxaad u baahan tahay. wax badan uma baahni. arrintan cidina uma maqnaa, ceello uma qodna. idinka idin sugaysaa. qof walba responsibility ka qaad hareerahaaga iyo aqalkaaga. saxar ha u ogolaanin. bini aadanka waxa loo sameeyay inay meel nadiifa ku noolaadaan. haddaanad indhaha ku kala qaadayn meel nadiifa, qalbigaagu nadiifoobi maayo. waxay dhahaynu la wada casyihiin sida la wada yihiin waa foolxumadaynu subax kasta kusoo kacno, indhaha ku kala qaadno. It is so important. waa lagama maarmaan. hindisaan noqon maysid. maskaxdu, that's why creativity iyo wax samayntii iyo farxaddii iyo wixii bay inooga tageen. ila waxaynu noqonay qoom maxaa iga galay, ilmo maxaa iga galay. That's who we are. ilmo maxaa iga galay. naag weyn baan maalin meel ku arkay oo qashin sidan ku dhig walaa qashinka afka ka xidh. waa wadankan dadkii lahaa hagaajisteen. markaasay igu tiri maxaa kaa galay. ma booliiskii qashinkaa tahay. maxaynu is hagaajinaa? wadamadii kale dadku hagaajisteen baynu caan kaga noqonay ilmo qashin sida iyo suluf ee biyuhu saa u duulayeen. guryaheennaa sulufa hortooda marka lasoo maro, innagii baa sulufa marka aynu dadka ag marno, howlweeyada iyo meelaha markaynu marno. xaafadahaynu degannahay waa ka caan wadamadan aan joogno. qaraxa iyo qashinka hor yaalla. Is that who we are? reer maxaa iga galay. It's disgusting. maxaad caasimad iskaga sheegaysaa? isla yaaba. dhalinyaradan meelaha tuban kaga shaqaysiiya. iskaa wuxuu qabsan programs fura. nimankan ka lacagaystay wadanka ya ee millionaireska iyo billionaireska ka noqday. wixii la odhan jiray corporate responsibility mee dowladdan yar ee miskiinka waxba haysan inta lagu haleynayo. kambaniyadan waaweyn magacyadooda anu waxba sheegi maayo, waa la wada garanayaa cidda yihiin ee ka wada lacagaystay ee daarahoodii qashinku saa ugu wada wareegsan yahay. hortoodii bay nadiifin kari waayeen. hortoodii meelihii loo marayay baa wada bohol ah. markaas tiraahdo xafiiskooda aad. dhalinyaradan intaad u furtaan meelo farsamooyinka laga barto ood 4 saacadoodna ay iskaa wuxuu qabso kusoo shaqaystaan. farsamay u baahan yihiin dhalinyaradii ay ku shaqaystaan. farshaxanimay u baahan yihiin. sharci buu madaxweynuhu soo saari karaa. dowladda hoose iyo madaxweynuhuba sharci bay soo saari karaan. ay odhan karaan sida Kigali ay samayso. Rwanda, the cleanest city in Africa. Actually, Maraykan iyo meelo badan bay ka nadiifsan tahay.
afrikuun baa dib loogu celinayaa way dhaaftay meelahaas oo dhan aqal kasta iyo reer kasta waxa lagu xukumay subaxii markay soo kacaan 30 daqiiqo ee ugu horeysa inay gurigooda iyo hareerihiisa geliyaan oo wax laale iyo wixii qashina ka ururiyaan hawshiiba waa soo yaraatay markaa aqal waliba subaxii markay kacaan waxa ugu horeysa ee ay sameynayaan hareerahooda oo dhan bay qashinka ka ururinayaan dadka qashinkii oo dhan oo isu keeneen oo bac ku xidhan baa hadhowta laga qaadaya ama meelo waxa jira lagu dhamgareeyo maxaatiin horta dadkan Soomaalida maxaatiin maxaa ku fiicantiin waayalo dumarka sida dhaam jiray oo awalba nadiifinta iyo waxa iyaga kaga fiicnaay dumarkiina la mid bay noqdeen waa daaleen aqalkeeda hortiisa ba eegmayso sharci iska soo saara ay dadku guryahooda nadiifiyaan oo kambaniyadani ay wadooyinka hortooda wada dhisaan oo ay contribution bixiyaan lacag donation oo magaalada qashinka lagaga ururiyo oo iskaa wuxuu qabso dhalinyarada loo siiyo dhalinyaroy qof kasta way ka go'an tahay wanaaga dalkiisa iyo aqalkiisa maaha wax dad gooni leeyihiin dabeecaddan qashinka aad meel walba ku tuureysaan joojiya meel walba haan horta dawladdu ha dhigto sharci ha lagu soo rogo dadkan qofkii lagu arko isagoo bac tuuraya ama isagoo qashin dhulka ku tuuraya tigid la siiyo la ganaaxo haddii kale sidaa u qayliya dayla qiyaamihii waa warayda guryo waaweyn maxaa laga dhisanaya guryo qashin baa qariyay waxay ugu dareed markii magaaladii la geeyay meelo la rabay in la soo daawasiyo gurigaana hebel baale gurigaana hebel maxaa laga tusaya anigu wax kale ma muuqato maxaa halqiyaan ku noolay maxaa luqad lagu hadlaayay maxaa sareera joogay maxaa la isku haybsanaynay hargeysay maxaa hore loogu marayay maxaa laga haagay lacagay maxaa halqigii dibirayay maxaa la habeeyay daaray hargeysay intood hawduga dhaqaaqday hirinka 5 mayl ka qabatay ambaasadar ma is hortaagtay sidee daarta loo habeeyay ammaanku muxuu hagaagay hargeysay miyaad maan soo rooyatay habeenna miyaad ku bariday hadhuub caana ah ku laacdood hidiya dhaqankii ku aragtay hargeysay hareera markaan jalleecay waxaan cidi hoos u eegin hawsheedina weli la gaadhin haraadkan dadkii u go'ayo jagooyinka la isku haystee hargeysay halka markaan marayo ayaa gidaar baa fadhiyo kaba hadlay baa la sheegay ayuu soo hormaray odayda sidaa u socdo god dibaduna qalloocdeen barduuf qaadana wuu shitaa anoo kii la yaabanoo leeyahay hadda kaamala carruurtiisa waa qatan tahay ayay habar bileel ku sidata uun siiya cadarna dafi soo tiri inaad aniga iibso islaantaadi aad u geysite bal hadda urso sakaaba iga gelisay may sii daynaysaa hargeysay maxaa odaheeda doowo dantiisii ay hallowdo caqaartuun haybsanayo carruurtiisii halmaamiyo maxaa habar waalan joogta aniga waxa kaliya ii muuqday ma maahan guriga waxa ii muuqday qashinka ka wada iyo bacaha aad moodo sidii Christmas tree ka wada laalaada siliga dusha kaga wareegsan iyo guriga hortiisa qashinka yaala miyaydan damiir lahayn qof naftiisii nadiifin kari waayay aqalkiisii nadiifin kari waayay muxuu dad kale kula gorgortami war sida si isu dhaama oo isu muuqashadan adinku isu muuqataan inta iska daysaan iyo turugta hadalka meel la taagantihiin qashinka hortiina ka qaada ilaa masaajidadii baa qashinka buuxa hoteeladii meelihii what the hell oh my god isla yaabo isku xishooda maxaatiin xayawaan خير يا براقة نرجعني أنا بدأ